natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee heer qaran ee sanadka 2012-2013 oo sanadkan ay guud ahaan Soomaaliland u fadhiisteen ku dhawaad 20,000 oo arday ayaa si rasmi ah waxa ugu dhawaaqay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo ay weheliyaan guddiga imtixaanaadka qaranka gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa isna madashaasi kaga dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee imtixaanka dugsiyada iyo ardaydii kaalmaha u sareeyay ka qaadatay dugsiyada hoose dhexe guud ahaan sanadkan xafiiska imtixaanaadku inay wax dhibaato ah oo imtixaanaadkii kala kulmin si fiican ay ku bilaabmeen kuna dhamaadeen marka waxaan idin sheegayaa dugsiyada dhexe marka ee dalka waxa ugu sareeyay 10 arday oo overall-ka ugu sareeyay waxa weeye gabadha la yiraahdo هو خبر عيسى آدم واسكول كلام شافعي هرجيسة بريدته لحظة قل إياه تدريه كذا وأقول إلي هباء تامع عمر أحمد نور الدين ون بريدته لحظة قل إياه اللحية كذا نمبر 3 يحيى عبد علي أحمد الخير بريدته لحظة قل إياه صار كذا sidoo kale marka la gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranku waxa uu madashaasi ka shaaciyay ardaydii dugsiyada sare kaalmaha sare ka galay iyo dugsiyada ay ka tirsanaayeen waayay dugsigii sare inuu gudubno waxa ugu sareeya iskuulka ugu sareeya waxa weeye iskuulka la yiraahdo SOS oo ku yaala Sheekh inanka wanka galay waxa weeye Abdi Samad Suleymaan Xasan Maxamed 716 إنك كحيل وايس لصوص عبد فتاح عبد موسى محمد تضرب قرية صدقية طبعا واحد كحيل خوضو هذا الموسى عتب نور الدين هرقيسة واحد كحيل مصطفى سيد تامع ورسمة نور الدين هرقيسة gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranku waxa kale oo xusay in sanadkan ay imtixaanaadka qayb qaateen ardayda baahiyaha gaarka leh gaar ahaan ardayda aragga naafada ka ah iyo ardayda maqalka naafada ka ah kuwaasi oo dhamaantoodba ku guuleystay imtixaankaasi waxaanu hambaliyo gaar ah u diray gudoomiyuhu Mustafa Inasabeeye oo ah arday gacmaha iyo indhahaba la isla markaasina qayb ka ah imtixaanaadkaasi shahaadiga ah kaasi oo tilmaamay in uu